aqalka Koongareeska oo aad loo soo buuxdhaafiyay oo ku yaala Capitol Hill waxaa ku sugnaa madaxweynihii 33aad ee Mareykanka Harry Truman oo 62 sano jir ahaa. xilligaasi waxa uu qabay awkiyaalihiisii isaga oo xiran dhar isku joog ah ayaa waxa uu furay eelkiisii madoobaa ee ahaa ee uu aadka u jeclaa in uu wax ka akhriyo marka uu khudbadaha u jeedinayo. waxa uu xilligaasi uu dadka u sheegayay halista maanta dunida ka jirta waa in wax laga qabto ka hor kulanka wadajirka ah ee Koongareeska, siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga qaranka ee dalka Mareykanka. waxa ay ahayd 12 bishii Maaj sanadii 1947 waxaana xilligaasi abuurmay in guul laga gaaray amniga qaranka Mareykanka kadib guushii ay ka gaareen ciidamadii Hitler. waxaana muuqatay in madaxweynaha uu dirayay xilligaasi fariin aad u weyn. Truman waxa uu shacabka Mareykanka ugu baaqay in ay dadaal ku bixiyaan sidii ay ku maquunin lahaayeen shuuciyadda iyo midowgii Suufiyeed. sida uu qabo taariikhyahanka ku guuleystay abaalmarinta Melvin Lever oo ah professor ka tirsan jaamacadda Virginia isla markaana qoray buugaag dhowr ah oo ku saabsan dagaalkii qaboobaa iyo siyaasaddii dibadda ee Mareykanka, ayaa yiri Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska waxay ku duuleen Ruushka sanadihii 1917, 1918 iyo 1919. intii uu dagaalkii u socday waxaa jiray xiisado ka dhashay ciidamo badan oo la geeyay galbeedka qaaradda Yurub. hogaamiyihii midowgii Suufiyeed ee Joseph Stalin waxa uu rabay in uu tallaabadaasi uu la qaado sanadii 1942 waxaana hubaala in aanay dhicin ilaa iyo sanadii 1944. sidoo kale Mareykanka iyo Ingiriisku waxa ay sameysteen bam atomig ah waxayna sirtoodii ay ka qariyeen Stalin kaasi oo ay ku wargeliyeen basaasiinta halka Mareykanku uu ogaa in ay yihiin basaasiin. markii uu dagaalkii u dhamaaday mudnaanta siyaasaddejiyaasha Mareykanku waxay ahayd in la hubiyo in cadawga uusan weligiis uusan iska wareejin doonin maamulka iyo kheyraadka Yurub iyo Aasiya. cabsida ugu weyn ee jirtay xilligaasi sanadihii 1946 ilaa iyo 47 ma ahayn in hogaamiyaha USSR Stalin in uu qaado galdaro military oo ka dhan ah Yurub. cabsida ugu weyn waxay ahayd in ay ka faa'iideysto qallalaasaha bulsho iyo midka siyaasadeed ee ka jira kadib dagaalkii Yurub. ma aha oo kaliya bariga Yurub iyo qaybo ka mid ah Yurubta dhexe iyo guud ahaan koonfurta iyo galbeedka qaaradda, halkaasoo maamuladii shuuciga ahaa ay kula loolamayeen Talyaaniga iyo Faransiiska inkastoo ay ka guuleysteen markii dambeeto. intaa waxaa dheer shuuciyadu waxay dagaal sokeeye ay ka wadeen Shiinaha. rajada guushooda waxay ka dhigneeday in Stalin uu soo bandhigi karay saameynta bariga Aasiya oo dhan uu ku leeyahay. rajadu waxay sidoo kaleeto ahayd mid aad looga naxo marka loo adeegsanayo waxa loo yaqaan aragtida domino, taas oo ku faafay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka muddo 10 sano ah, kaasi oo dhigayay waddan aan shuuci ahayn oo horseeda burbur dal shuuci ah iyo sidoo kaleeto burburka dowladaha aan shuuciga ahayn ay u geystaan dowladaha dariska la ah. bishii Febraayo sanadii 1946 Stalin oo ku sugan Moscow waxa uu jeediyay khudbadiisii ugu horeysay kadib dagaalkii. waxa uu walaac hor leh ka muujiyay in uu socdo dagaal hor leh kaasi oo qarsoon. waxa uu ku tilmaamay nidaamkaasi suuqa xorta ah. waxa uu ku dhawaaqay in musiibo laga dhaxli doono arrinta isla markaana aysan jirin cid dil ka hor istaagi karto in uu gaaro go'aan nabad ah oo isaga ku saabsan. sidaas darteed USSR waa inay isticmaashaa awooddeeda iyo kheyraadkeeda sanadaha soo socda si ay u horumariso warshadaha aasaasiga ah ee hubka. saraakiil badan oo Mareykan ah oo uu ku jiro Truman oo ahaa madaxweynihii xilligaasi dhig jalaq uma aysan siinin arrintaasi. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta waxay u arkayeen hadalka inuu yahay ku dhawaaqid dagaalka adduunka ee saddexaad. sida uu qabo Denis Bastrov oo ah professor wax ka dhiga jaamacad ku taala gudaha dalka Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo u qaabilsanaa arrimaha dibadda ayaa safaaradeedii Moscow ka codsatay in ay sharaxaad ka bixiso damaca midowgii Suufiyeed uu ka doonayo ballaarinta danaha caalamiga ah. jawaabta uu ka bixiyay diblomaasi aan wax badan laga ogeyn oo lagu magacaabo Georgios Kennan ayaa ahayd middan. Kennan
waxa uu dalbaday in Telegram ka kooban 8,000 oo erey kaasi oo uu marar badan isticmaalay halbeegyo ay ka mid yihiin shuuciyadu waxay ahayd sida cudur oo kale. Sida ay reer galbeedka ay isku dayeen in ay sawir cad ka helaan ujeedada Sofiyeedka ee xilligaasi Sofiyeedku waxay isku dayeen in ay fahmaan waxa ay sameynayaan xulfadoodii horeeto. Fariinta Telegramka ee Sofiyeedka ee keenan waxay ahayd fariin ka timid Nikolia Nifokov, safiirkii Sofiyeedka ee Mareykanka Sebtembar sanadii 1946 waxa uu ka digay in Mareykanku uu ka soo baxayo dagaalkii labaad ee adduunka isaga awood leh dhaqaale isla markaana gacanta ku hayay adduunka. Telegramka Nifokov wuxuu dib u xaqiijiyay go'aankii Sofiyeedka ee ahaa in uu ballaariyo sameyntiisii oo uu ilaaliyo dhulalkiisii kala qaybsanaanta bariga Yurub. Fariintan waxay mar kale muujisay cabsida kala shakiga iyo sidoo kale is-aamin la'aanta ee ka dhex aloosan labada dhinac ee uu ku lug lahaa dagaalkii qaboobaa. 19 maalmood kadib khudbadaasi taariikhiga ah, Tarman waxa uu ka codsaday Koongareeska in ay ansixiyaan 400 oo milyan oo lagu taageerayo Turkiga iyo Greega, wuxuuna ugu baaqay in ay muwaadin kasta oo Mareykan ah inuu la dagaalamo shuuciyadda noocyadeeda kala duwan leh. Tarman oo madaxweynihii Mareykanka ahaa waxa uu raacay talada xildhibaanada senatarada kadib hadallo 33 ilbiriqsi ahaa oo ku jiray khudbadii 19 daqiiqo ahayd oo ku salaysnayd xaaladda markaasi taagan. Khudbadaasi uu ka jeediyay kalfadhiga, waxaan aaminsanahay in aan caawino dadka xorta ah si ay aayahooda uga fikiraan. Waxaan aaminsanahay in ay taageeradeenu ay noqoto mid dhaqaale iyo mid maaliyadeed, taasi oo laga maarmaan u ah xasilooni dhaqaalo iyo mid siyaasadeedba. Xaqiiqda Tarman ma ahayn qof aftahan ah marka loo eego khudbadaasi, waxa uuna ku farxayay taageerada loo muujinayay. Maalmo kadib waxaa dhacday dood kulul oo ku saabsan arrintaasi iyo ereyadaas aad maqasheen. Labada aqal ee baarlamaanka ayaa May 22 sanadii 1947 hindis sharciyeeda ku aadan arrintaasi. Madaxweynihii Mareykanka ee Tarman ayaa saxiixay hindis sharciyeed ku aadan arrintaasi. Madaxweynihii Mareykanka ee Tarman ayaana qalinka ku dugay sharciga kaasi oo dhigayay in aan la aqbali doonin in shuuciyadu aysan wax guul ah aysan gaarin. Waxayna noqotay tan 33 ilbiriqsi ee uu ka bilowday dagaalkii qaboobaa ee adduunka. Wixii xilligaas ka dambeeyay waxaa ooda jarmay dagaalkii qaboobaa ee adduunka, taasi oo ugu dambeyn sababay in sanadii 1991 la cirib tiro Sofiyeedkii oo laga saaro shuuciyadii